السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سو هذا وحي إلين تابع ونكسان كسل حبيبك صلى الله عليه وسلم. مقعيقو وحسنتين بدي channel كنا وحسنتين بدي هذا نقول سبحانه وصبر دهر نولي جوتينا waxaan rajeynayaa inaad like-ta noo saarto wayna dhiirigelisaa wayna dhaqaajisaa. Maanta waxaan ka hadlaynaa mowduuc aad muhiim u ah kalsoonida nafta ama sidii nafta kalsooni gelin lahay ama kalsooni loo dhisi lahay. Maadaama aan joogno 2025 almost waxaa muhiim noo ah ama qasab lagu ah qof walba meeshuu joogo inuu u kac ka sameeyo ama uu hore u dhaqaaq ka sameeyo. Sidaas daraadeed aan ku bilowno ma isweydiisay shaki naftaada ku jiro oo ka hortaagaya inaad horumar samayso. Haddaba waa waqtigii la bedeli lahay oo isbedel lagu sameyn lahay. Taas bedelkeedana aad raadi lahayd sida nafta aad ku bedeli lahayd. Kabacdina aad maxay ay tahay qof isku kalsoon laguna kalsoon yahay aad noqonayd. Run ahaantii markaad adigu isku kalsoon tahay bay bulshaduna kugu kalsoonaan kartaa. Haddii aad muuqaalkan daawato waxaad heli doontaa wadooyin aad u marto inaad naftaada kalsooni geliso. dabcan diyaar ma u tahay inaad naftaada bedesho 2025? haddii jawaabtaadu waxaa tahay la soo raac oo furo awoodahaada insha allahu biidnillahi. Tallaabada koowaad waa mid sahlan laakiin muhiim ah, aad iyo aad weliba muhiim u ah. taasna waxaa weeye bal horta baro adigu qofka aad tahay iyo qiimaha faham oo naftaada faham qofka ay tahay waxay ku fiican tahay iyo waxaysan ku fiicnayn intaba. Intaas markaad fahantid jooji isbarbardhigga dadka kale oo ha isku dayin inaad isku dhiriirado qof bini aadam ah, sababtoo ah ma jirto qof la mid ah ama waxa adiga kugu jira qof la siiyey ma jiro. Inta dadka isbarbardhigi lahayd isku day inaad soo saaratid awoodahaada ilaahay dhexdaada dhigay oo ku dadaal waxyaabo ku dhiirigelin naftaada. Waqti la qaado oo qor guulihii aad gaartay sanadkii la soo dhaafay iyo kuwa ku degsan ood rabtid inaad gaartid insha allahu sanadka soo socda. Markii aad qortid guulihii aad gaartay iyo xirfadaha aad taqaanid ood isku darsatid intaas waxa kuu soo baxaya inaad ilaahay u mahad celiso, naftaada u mahad celiso, run ahaantii aadna dabaal degto oo naftaada siisid danayn gaar ah, naftaada inaad siisid mahad celin gaar ah. Balagu markii adigu aad ogaatid qiimahaada ama waxa aad ku fadhidid ma jirto cid inta gadaal kaaga imaato ku niyad jebi karto. Arrinta labaad ayaa noqonaysa ama tallaabada labaad waa iska ilaali fikirka xun. Cadowga ugu weyn ee kalsooni darrada ama kalsoonidu ay leedahay waa fikirka xun. Haddii aad ku fikirtid tan ma qaban karo ima fududa inaad qabto hawshan, waxaad hoos u dhigtay ama aad dhumisay kobcidda naftaada. Halkii aad adeegsan lahayd erayo liita, isticmaal erayo ku dhiirigelinaya oo naftaada siinaya horumar sida dadaal waa lama huraan, naf iyo hadimada ka dhowrso, ku soco helinkan wanaag. Markasta oo caqabado wajahdo waxa kuu fududaanaya ama kuu furmaya oo ama aad helaysaa furo kamida furayaashii guusha iyo dhiirigelinta iyo isku filnaanshaha kalsoonida nafta intaba. Haddaad guul daraysato macnaheedu maahan markasta oo wixii sidii aad u rabtay ay noqon waayaan howl aad waday, macnaheedu maahan inaad guul daraysato, laakiin macnaheedu waxa waaye inaad cashar qaadatay oo hore u soconayd. Caqabadaha ku soo wajahayana waxaa loo qaataa fursad waxbarasho. hal yastawi alladina yaclamuuna alladina laa yaclamuun. ilaahay saas oo dhan isla mid ah kuwa wax yaqaana iyo kuwa waxba aqoon waa maya. Qaybta saddexaad ayaa ah ama tallaabada saddexaad waa in aad leedahay yoolal cadcad. markasta ood leedahay jahaynta nafta subaxdii markaad soo kacdid ama habeenkii markaad seexanaysid waa markasta oo kalsoonidaadu kororto oy siyaado isku kalsoonida naftaada iyo horumarka naftaada intaba. Samee yoolal yaryar oo u shaqeeya yoolasha berrito ee waaweyn, yoolasha sanadka soo socda ee waaweyn. Markaad yoolal yaryar sameydid waxa kuu hagaagaya ama jaranjaro u samaysmaya yool walba xilligaad gaari lahayd iyo markaad samayn lahayd meel bay kugu qoran. Mar haddii aad hagaajidid yoolal kuwa waaweyn sanadle ah, yool sanadle ah, yool bille ah iyo yool asbuucle ah, waxay toosinayaan noloshaada waxaadna ku helaysaa kalsooni buuxda. taas aniga i weydiiyey. Laakiin xasuusnaada kalsoonidu ma ahan wax kaamila oo hal mar inta la dhiso laga tago sidii guri inta la dhiso la dhammeeyo ma noqonayso, laakiin waa wax maalin walba u baahan ku socosho iyo yoolal, hami iyo higsi intaba. Naftu wixii fiican haddii aad ku qasbin ma yeelayso. waxyaabaha xun haddii aad ka celin kama leexan. ina nafsa al-amaarata
dhiso. Qaybta afraad ayaa waxay tahay caafimaadka jirkaada run ahaantii iyo maskaxdaada waxyaabaha ugu muhiimsan oo aan haysano ka bini'aadam ahaan oo Ilaahay nagu galladaystay ayaa waxay tahay caafimaadka Ilaahay na siiyey iyo maskaxda Ilaahay. Marka maskaxdeena haddii aanan maskaxdeena iyo jirkeena ula dhaqmin si wanaagsan, waxaa imaanaysa inaan weyno caafimaadkeena, inaan dhumino jirkeena quruxdiisa. Saas daraaddeed, inaad cunto fiican cuntidoo nafaqo leh oo ku anfacaysa, in aad isticmaashid biyo badan, iyo in aad exercise samaysid aad u muhiim u yahay. Exercise-ka shayga la yidhaahdo aad u muhiim u yahay, ama gym aad haddaad awoodid, haddii aadan awoodinna maalin walba xitaa 15 daqiiqaba ha ahaatee socod, orod, yoga, jimicsi yar, wax waa inaad isku dayid. Taas waxay ka mid tahay markaad jirkaada iyo maskaxdaadu si dabiici ah isula jaan qaadaan, waxaad helaysaa awood aadan filanin marnaba. Caafimaad ahaan markaad u dhisan tahay ood caafimaad ahaan qof u tayaysan aad tahay, tayadaada caafimaadka iyo caqligaada iyo maskaxdaada ay isla jiraan, waxaad arkaysaa amaad ogaan doontaa inaysan jirinba wax ku celi kara oo xaalad walba oo kusoo wajahda aad xalisid adigoon weliba ku tashanayn ama aadan islahayn waad xali kartaa adoo arkay inaad biidhnillaahi alkariim. Awooduna waa kalsoonida. Waxyaabaha keena awoodda qofka bini'aadamka inuu awoodiisa arko waxaa kow ka ah shayga la yidhaahdo kalsoonida. Midda shanaad ayaa ah ku hareeree naftaada dad wanaagsan, kana fogey dadka xun. Waxaa la dhahaa toxic people. Haddii ay kugu hareeraysan yihiin, adiguna toxic aad noqoni. Dad wanaagsan oo motiva ama activity haddii kugu hareeraysan yihiin, adiguna qof activity aad noqonaysa. Isku day inaad isku hareeraysid dad wanaagsan, alle ku xiran, maadaama adigu aad qof muslima tahay, activity-gooduna uu yahay dad wax soo saar leh. Mar kasta oo awooddaada iyo wax soo saar aad leedahay, waxaad helaysaa kalsoonida nafsadaada. Mar kasta oo kalsoonida nafsadaada kortana, waxaa koraya awooddaada iyo awoodahaada ku jiray gudahaada oo soo baxa ayaad arkaysaa. Mar kasta oo dad xun ay kugu soo beegmaan ama dad xun aad la joogtid, waxaa dhumaya tamartaada, waxaana shaki gelaya awoodahaada, waxaana dhumaya kalsoonida. Xasuusnoo bulsho sax ah waxay kaa caawin karaan in aad gaartid heerar sare iyo in nafsadaada iyo noloshaadu ay kalsooni buuxda. Horumarka waxaa kow ka ah inaad kalsooni buuxda hesho ood naftaada ku kalsoonto. Waxaa la dhahaa meeshaad u socotid inaad gaartid ama safarkaada inaad dhammaysatid, waxaa ka horeeya inaad wada sax heshid. Inaad wada sax heshidna waxaa ku xigta inaad socotid oodan istaagin. Midda lixaad ama qodobka lixaad ayaa ah ka bax aagagga raaxada. Waa maxay aagagga raaxada? Aagagga raaxada waxaa weeye inaad ku nasato, aadna ka nasatid howl ku sugaysa inaad ka nasatid ood ka caajiso. Waxay ka mid tahay inaad ku jirto aagaggii raaxada. Markaa ka baxdo aagagga raaxada, waxaa isbedelaya waxyaabo waaweyn ama nasashada aan saxda ahayn. Nasashada aan saxda ahayn waxaa weeye markii aad howl ku sugaysa ood qaban doontid ama aad qaban lahayd aad gadaal u dhigatid. Waxay ka mid tahay aagagga raaxada. Saas daraaddeed, markaa ka baxdo aagagga raaxada, waxaa isbedelaya nafsadaada, waxaa isbedelaya saaxiibadaada, waxaa isbedelaya wax walba oo awal si caadiya kula ahay. Waxaa ku raadi doona saaxiibadii aad wada nasa jirteen ood ku nasa jirteen aan saxda ahayn ama jiifka aan saxda ahayn. Waxaadna la kulmi doontaa markastood naftaada bedesho. Meel walbood naftaada u bedesho waxaa jooga saaxiibo. Meel walba ood naftaada u bedesho waxaad ku yeelan doontaa saaxiibo. Haddaad xumaan u bedesho naftaada, saaxiibaad yeelan doontaa. Haddaad wanaag naftaada u bedesho, saaxiibaad yeelan doontaa. Haddaad jaranjaro fuushid ood naftaada ka qaadid meel hooseed kor la aadana, saaxiibaad yeelan doontaa. Haddii aad masaajidka ku xiran tahay, saaxiibaad leedahay. Marka meel walba waxaa la dhahay saaxiibaad jira. Markaad ka baxdid aagagga raaxada, waxaad sugaysaa waa inaad u bareerto halista. U bareer halista oo samey xataa hal shay oo ku cabsi geliya. Ganacsigu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha ku cabsi gelinaya. Inaad shaqo tagtid oo shaqo raadsatid adigoo guriga iska joogay ood naftaada bedeshid waxay ka mid tahay waxyaabaha ku cabsi gelinaya. Inaad gym aadid subaxdii salaada subax u soo kacdid ama aad exercise samaysid waxay ka mid tahay waxyaabaha ku caajis gelinaya ama ku cabsi gelinaya. Samey shay ku cabsi gelinaya si aad u furatid si aad u heshid furayaasha kalsoonida fura ka mid ah. Markaad halista u bareerto, waxaad helaysaa fure cusub, waxaadna baranaysaa waxyaabo cusub oodan hore u baran. Bilow oo ka qayb gal tartan toddobaadle ah oo hal arrin
oo ku cabsi gelinaysa ku dhaqaaq noocay doonta ha ahaato. Naftaada halkaas kalsoonida ka helaysaa, adigana waxaad ka helaysaa firfircooni iyo nashaad. Mar kasta ood ku guulaysato inaad samaysid arrin cusub ama shay cusub, waxaad heli doontaa kalsoonidaadu inay kororto ood ku dartid maalinba maalinta ka dambeysa. Haddii marka ay cabsi ku gasho ood xoogaa cabsatid, ha ka welwelin, sababtoo ah cashiraad baratay ama wax cusub aad baratay. Haddaad guuldareysatana macnaheedu maahan inaad faylgarowday, laakiin waxaa la dhahay guusha guuldaraa ka horreeya, guuldaradana guulaa ka dambeeya. Haddaad guuldareysan ma guulaysan kartid. Midda toddobaad uguna dambeyda ayaa waxay tahay aqbal qofka adigu aad tahay. Inkastoo bini'aadamku ilaahay uu u sameeyey awood, haddana inaad aqbasho qofka aad tahay waxay ka mid tahay kalsoonida. Ha raadin waxyaabo aan bini'aadamka loogu talagelin ama ka baxsan awoodaha bini'aadamka. Inkastoo kalsoonida iyo horumarka iyo guulaha loo baahan yahay, haddana nafsadaada haddii aad ku qanacsan tahay qofka aad tahay, inaad ku qanacsan tahay waxay ka mid tahay inaad tahay qof isku kalsoon. Kalsooni maahan inaad noqoto qofka ugu wanaagsan, laakiin kalsoonidu waa inaad tahay qof ka fiican qofkii aad shalay ahayd. Ma jiro qof dhammaystiran, laakiin ha isku dhiibin adigoo eersanaya ama dhibsanaya ama dhahaya meelan ka liitaa. Ha isku dhiibin inaad guuldareysato ama aad ka hartid dadaalka nolosha. Mar walba ood heer yar gaartid, intay doontaba ha la ekaatee, u mahadceli ilaahaaga iyo naftaada. Waxaa kaloo u mahadcelisaa oo muhiimadda leh run ahaantii ayna mudan tahay in loo mahadceliyo walaalaha soo garab qabta meeshuu doono ha ka imaado, iyo waalidka. Waxaa la dhahaa be grateful, qof shukriya noqo, sababtoo ah markii aad ku shukridid ilaahay ama addoommadiisa, waxaad noqonaysaa qof shukrigiisu mar kastaba uu joogto noqdo. Soomaalideenna waxaa muhiim ah inaan ogaano inaan la mahadceliyo inay tahay wax muhiim. Naftaada u mahadceli, ilaahay ku abuuro u mahadceli, una mahadceli qof walba oo maalin wax kugu taray. Dad waa wax muhiimka oo dad naga dhigay. Dad waa wax muhiimka oo qof muuqda naga dhigay. Dad waa waxaas waa wax muhiimka oo naga dhigaya qof isku kalsoon. Laakiin maalintii aanan qofkii xataa wax noo qabtay haddaan ilowno ama waalidkeen aan ilowno, waxaan ilaawinaa nafteennana waa ilaawina. Haddaba kuwani waa 7 tallaabo oon isleenahay kalsoonida waa lagu dhisi karaa. Kalsooniduna ma ahan wax iska yimaada ama hal mar la dhiso, laakiin kalsoonidu waa tallaabo ku celceli. Waxaan rajaynayaa muddo kadib inaad arki doontid isbeddel togan, weliba muddo gaaban insha Allah. Intaas kadib muuqaalkan naguna soo biir, aan hal mar si wada jira u korno, una islana jaan qaadno, annagoo rabna horumar dhinac kastaba. Bal ogow haddaad adigu i dhiirigelin oodan like iyo aana kugu dhiirigelin hadal iyo wixii aan ku dheerahay, waxay ka dhigan tahay inaan isgarab qaban karin. Aan israacraacno, isna garab qabanno, guushuna waa noo dambayda. Salaam.